السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن صد وهذا ملك الصدق شكتان دنيا دافئ هذا channel كوي ياسمينتينا channel حتى تقول عصوب تاي صوب وغا سبسكرايب يسورده إن الشركة ما بكنا يسار thank you هره هذا إلى شكتي وحرر إنا حوجا reaction يركب حيو سيدن حرقة مياد بدين الماضي ريال فارح يضو حتى سيدن حرقة بدين هرتا يسوع شيء بهرتا نمكن إلا يرد جيست نجى إنه نايت الدنيا وقبي عداكره هديها بقر أنا هاي ضاد عن كقمنا من اللي توجر من اللي توجر هاد كسر بوادي النايت كسر بنايت وادي هدان ديرو كتلوا ما أنا بقولوا اللي توجر ما اللي توجره بالوصول وهذه أرجد وسطوية أظن أنت قبل قبتين بالبدال كنت لي ما كنت لي نا كنت مياني كلودي قبل لبعض بوهدي بقولها يسكون مقلانا هلا دلو ملكي أوسي سال وجود قات إن قبر بونن كودي من كراي لو كنت نوي كلا دمان تهاي سيدان إنكستوي لي رفريد وجوابيو رجونا أين تنرى لك وضع هين لكن عقل الله وهو دنساس آمن سنيه حنون كان بكود جرا إن إيضا وحن سوق هذا يا بالقبر أداوع جارسيسين إن الرجو أدو دوش يدين كوضع صارنتاي هدو كيني وحميي عن كي كدن بي وحسحينين أدو دوش يدين كتورنانسا ما قرتين مركز ترتيب بالقبر أنا إلى يرضى وضع وين أنتي فيه ما نمكو كفسن كفستو ضمير له هيستمو دريمي يوم قدم قنايا قبر داير وقبر ديري يلا كفسده سيده خن لو غلاي قرب مليهين هيستني waxa weeyaan fanaanada Djibouti qaada Aamina Faarax gudbayo waxaan uga socdaa gabadhi waataan ahaa gayaankay way jeclaa gacala hooyoy gacalo marbuu guuri ee ka wataadi galaafateen gacala hooyoy gacalo laba jeer go'aye godkiyo iilka igu rida وهاس حنون كذا وضعتها رواية بيكون جيسي رواية داس إنان لأوريي مركا أي أحد بيكون جيسي فناند كبردن exactly وحاكو دعاي دبعتا ده هاس تالك سمية أوكالي رشاق الصوماليات ومدكو حماية ودبعتا كو جيسته إيا مد دبعتا دي وكو جيسته مد ساقو كالي كاقا عرارا وكوكو عمبارية وليبه دنبي آذان أدقو وحبا كلهين ومد قير كيس وكو جيستي exactly قبدا حنونك يدباتا دا يداوع لو جيستي وينو وذدري منا وينو نأرقنا نمبا كفصدي دباتيي داوعيدا اي كعباني ساقارسيي إساقو عيب ملها ننكي وحاسو دان سميي عيب ملها mid kala Google u googlayso oo bogga saarayso xabiibi macaan oranaysa sidoo doonuu falaa hees la oran jiray fartan doonaan qora nimanka Soomaali unba farti doonaan qora qof kale oo qora ma jira fartu doono because zinada uu ku faanaya kufsiga uu ku kufsaday uu ku faanaya waliba darajo ku helaya laciifnimo kama soo gaarayso in fadeexadna kama soo gaarayso waa nin oo manin ba ceeb le baa la oranaya laakiin naagta ceeb le قبل الصوماليات أي إني لو إذا ugu talagalay because ragga ay ka dhalatay duqaaga ah baa sharci dajistay ceebta gabadha lagu koobo gabadhu wax ma kufsan wax ma doonan iyada la kufsaday haddana iyada ceebaysan iyada dhaawacan haddana iyada ceebaysan iyada dulman haddana iyada ceebaysan isaga dulmiyay haddana isaga ku faanayo garaadda kuloo dhibca ku haysta isaga kufsaday isagiba haddana dhibca leh oo nina iyada ciilkii la nool waxaynu arkaynay gabar kale oo xanuun inta lagu riday uu ka doodayo inta halkaas soo fadhishan koor inta soo xirtay kii xanuunka ku riday uu ka doodayo oo qabiil lagu difaacayo waliba tunaaga oo meel ay ka socotay meel u socoto aan la aqoon oo inteeda qarsata oo barkinta ku oyda iyadu ba gabar kale la dulmay waxay ku difaacaysaa waa in adeerkay waa walaalkay ninka dulmay horta inta aad gabadh dhabarka ka jabiseen ee kor iyo hoos buu ooyeysa iyadoo ciilan waliba aakhiratigiisa on adduunka loogu aarin waxaan idin leeyahay horta ilaahay dhabarka idinka jabiyo
waxaad dhabarka ka jabisaan mooy wax kale ma taransataan gabadha yar quruxda badan because nin guursanaya ma leh because waa naagtii la kufsaday laakiin ninkii kufsaday ee waxaanu dhan sameeyay because boqolaal naagood baa u diyaarsan because waa nin ceebtu ma qabato naagahana ma siqsiqdo baa ka buuxda ma wiswisto tan qabiilkana wax ku difaacda qabyaalada kaliya ay uga shidan tahay aqligeedu uu inta ku go'an yahay gabadh kale oo inay caydo inay xanuun ku caydo inay qabiil ku caydo inay nin ku caydo inay dhaawac soo gaaray ku caydo mooye aan wax kale ka adkayn tan ugu aqliga badan tan ugu aqliga badan ba ugu liidata naagaha Soomaalida tana ugu aqli badan ugu fariisan ugu geysanta istiraad ba ugu aqli xun sababta ugu aqli xun tan ku sheegay waa inta soo yaro ina ka hesha inta in la ogo ina haday ka hesho waxa weeyaan way kugu dhaga hadlaysaa way ku hoos gelinaysaa hadad wax yar meel yar ad ka leexsantahay tirad halkaasan ka leexsanaysaa waxba saa iga qaldan haddii toos kugu soo bireer wada xitaa kugu dhaga hadlaysaa way kugu mudmudaysaa kugu dayaysaa inaad fahmaysid in kale hello aqli xun xiiqsan qalbadu taagan tahay oo qabyaala dirdirtay laakiin isqariso oo maryaha isku dhex marto oo dadka sidimuduq isaga dhigtaa wax buuxda gabadhaasi dhaawaca ku dhacay waxa weeyaan because hadday naagaha Soomaaliyeed ninka gabar saas u dhaawaca ee meel uga soo wada jeensan lahaayeen oo tii soo agmaro ay ku rada la hoogay maadiga makii oo isaa u warfin lahaayeen oo waxan ay iyaga ku dhajiyeen ceebta uga dhigeen ceebtiisa ku tiimbrayn lahaayeen fooda uga dhajin lahaayeen tii u la hadlaba sawirkiisa soo qaadan lahayd Allah kiiba ninkiina ta kufsaday Allah dhilayga halkan maray Allah ninki ceebisna halkan maray hadii la oran lahaa waxaan lahaayeen dib bay u didibsan lahaayeen hadday saameyn ku yeelanayso dhaawacyada ay gabdhaha u geysanayaan laakiin waxay og yihiin inaynan saameyn ku yeelanayn that's why waa inay dhaawacaan gabdhaha waa inay ku sii socdaan waa inay balanbaliyaan waa inay bi'iyaan laakiin isagu kumana guur waayayo kumana ceeboobayo waxa ceebaysan waa tuu kufsaday iyo tuu dilay iyo tuu balanbaliyay waxaynu arkaynayeen ninkii gabadha gubay hooyadii xijaabo oo bixinta xitaa niqaam kugu olol wiilkayga cadaalad ma helin guri buu gubay naagta muun gubin yaa ku dhaaran kara yaa kitaab ku maray baraha bulshada la taagan tahay waxayna naag qaribinimo qaribmeen naag xun oo waliba dulman oo qalbada laga soo abiiso qalbadu taagan tahay ama laga tagay inta dhowr laga dhalay la silciyay oo ciil qabta ama la kufsaday oo qarinaysa kufsashada iyada la kufsaday laakiin gabar kale ku diganaysa waxa ku dhacay iyada uun ba isu jeedo isku digata laakiin dayuuskan silcinaya uma jeedo hello bahsan qalbadu taagan tahay qalbada in la idin qarxiyad ku qurux badantiin sababtoo idinka isku diganaya idinka isu daran idinka isnicab idinka isku mashquulsan isuma heelanaysan oo gabadhina dhabarka laga jabiyay ma garab istaagaysan kiibad raacaysan dhabarka jabiyay maxay tahay naagi si kasta wax barato si kasta meel u gaadho qabyaalad baa ku qafilan dad xanuunsan baa buuxa aad baan uga xanuunsaday gabadha yar habar yar ilaaha kuu boogadhayo quruxley baata dibna adigu ma qabtid dibna adigu maadan geysan nin iyo naagna inay iskorkoraan ilaahay baa ugu talagalay laakiin wada foolxun baa lagu soo maray wada foolxun baa lagu soo maray oodan raali ka ahayn ceeb haddii loo dhimanayo nin qayrkiisa u foorarsanaya ceeb u dhiman lahaa hello iyo kan loo foorarsaday laftirkiisa maqnuudka kala ah ee ismoodaya inuu ka fiican yahay kan xoolaha fuulaya ee xayawaanka lo'da iyo dameeraha iyo riyahaba fuulaya haddii ceeb loo dhimanaya kaasaa ceeb u dhiman lahaa saqiirka ka fuulaya sabiga fuulaya haddii ceeb loo dhimanaya kaasaa ceeb u dhiman lahaa ninka gabadh intuu afduubto kufsanaya ama daroogaynaya ama balaayo kale ku samaynaya haddii ceeb loo dhimanaya kaasaa ceeb u dhiman lahaa wax ka ceeb badan adduunka ma saarna iyaga aakhirana dembi baa u hursanay la aadayaan qalbadaadu yeenu jabin dadkan dheeriga ah adduunkana denin Soomaaliyeed oo kaliya ma joogo rag waa badan yihiin hadday noqdeen mid ku kufsada iyo mid kaaga carara wuxuu kugu sameeyay kii dhigooda ahaa waa ka badan yihiin rag
يكون وليه فرح مش باستاهين بدون السارين هلو أطبعنا قحمة هيداو عاقة لكنها أوتشوشيني مدحا كورو قادو أو تلابسو هالكا لابتا كا حرقود قبل قروح بدن باتاهاي واحد تنبي أود ليدهي مجرو حرير باتاهاي أديكو لكن نبي ديوسه أو دليو أو دقنا أديكو you're good and I love you مر والبا waxaan ku leeyahay guuleyso qurux leeydaasi orad salaamaya naagaha dayuusintii qoris mariskee marba dhinac isu rogana hush dhaha marba wajiga leh laba wajiilayaasha dhin xirka ilaahay ma soo eegaa leeyahay maalinta qiyaame marna la soo safanaya dayuusinta gabdhaha silcinaya marna dumarka haagsan iska dhigaya hello qalbada ku taagan baasan in laga siiyo mooy caaqiba kale ma lihin la عارقتي لا جموكتا ياسمنتين هذا لو waxaan hay la gaataan